caalamka waxaa ka socda dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo. Israa'iil ayaa weerar xooggan ay ku qaaday ruuxaantii xarumo waaweyn oo ku yaala dalkaasi Iiraan. Sandaasigaasi kadib ayay Iiraanna jawaab kulul ka bixisay inkastoo ay dagaalka kala qaybsadeen. Israa'iilna ay weerarto maalintii, Iiraanna ay habeenkii mayracdo. inta aynan usoo ka gudbin arrintaasi iyaga oo ruuxaantii hubka kan uu yahay hub noocyadiisa aan la arag ee adduunka ka mamnuuc ah oo nuclearka oo ay labadooduba haystaan. haddii lacala ay dhacdo oo ay isu adeegsadaan, saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa caalamka oo idin. dad badanna way ku dhiman doonaan, taas oo aad looga digayo oo ay wadamada iminka reer galbeedku ka soo horjeedaan in dagaalkaasi uu sii socdo, iyagoo badankoodu markii hore taageersanaa dagaalka ay Israa'iil ku bilowday waddanka Iiraan. inta aynan arrimahaasi sii falanqaynin, waxa mawduuceenu caawi yahay waddanka Soomaaliya oo ruuxaantii faqri, gaajo iyo weliba dhibaato iyo macluul la daalaa dhacayay. saameyn intee leeg ayuu ku yeelan doonaa, iyadoo ay ognahay in waddanka Soomaaliya kinaalada waaweyn ee iyadu markaasi goobahaasi ku yaala ay u soo maraan adeegyada kala duwan. dhammaan waxyaabaha uga imanaya wadamada caalamka oo idin ayaa istaagaya haddii Iiraan ay xidho kinaalkeedan oo ah marinka ugu weyn ee ay markaasi caalamkoo dhan isticmaalaan. Soomaaliya boqolkiiba 90 alaabooyinka laga keeno bannaanka ayaa ah kuwo ruuxaantii xitaa dalka lagu sameeyo. dadka Soomaaliyeed haddaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayraad ayuu ku manaystay beeraha iyo weliba waxyaabaha lagala soo baxayo khayraadka dalkooda ayaa ruuxaantii ah kuwo ku filan. sidee ayay uga diyaar garoobeen dadka Soomaaliyeed? ma ku baraarugsan yihiin in dagaaladan saameyn weyn ay ku yeelan doonaan haddii ay sii socdaan, isla markaana la xidho kanaalkaasi oo iyadu raashinka, bariiska, baastada iyo wax kastaba ay uga soo degi jireen, gaar ahaanna ay xidhiidhka ugu weyn la leeyihiin Dubai. tanina ay soo istaagi karto. haddaba dadka Soomaaliyeed waa inay ku baraarugaan in ay sii samaystaan sahay, isla markaana beeraha iyo khayraadka Ilaahay uu siiyey in ay beertaan. hooyada tani waxa ay ka timi dalka dibadiisa, waxay ku nooshahay magaalada Laascaanood ee xarunta dowlad goboleedka SSC Khaatumo. waxay nooga sheekayn doontaa isla markaana inoo faahfaahin doontaa inay Mareykanka intay ka timi ay waddankii hooyo ku beeratay adeegan dalaga ah ee maanta la Just all my friends that is overseas, come back and start building your country on your own. This is where your motherland, this is where your father is from, your mother is from. And there's a say, they say here, Lamahuraan wa Aus Jila. So always come back here and start it, and I'm showing you within 8 months, all of this can exist. waxaan dhiginaanu ku baraarugno dagaalka kan Israa'iil iyo waliba Iiraan saameyn weyn buu ku yeelanayaa ummadda Soomaaliyeed. qof kastaana in uu sii diyaarsado agabka uu ku noolaanayo, innagoo haysana dalagyo wanaagsan iyo dhul beeraad wanaagsan oo waxyaabaha ka soo baxaya ay yihiin kuwo xitaa wadamada caalamku aysan badankoodu haysan. tanina waa baraarujinta aynu doonayno inaynu wax ka baranno dhibaatooyinka caalamka ka dhacaya. ururada bulshada iyo dadka iyo maamul goboleedyada dhammaantoodba arrintan waa inoo muhiim in aynu ku baraarugno in Soomaaliya khayraadkan iyo barwaaqadan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu deeqay inay ka faa'iidaysato. waxaanu haysanaa galeydii, waxaanu haysanaa muuskii, waxaanu haysanaa qudaar oo dhan oo ah mid aynu kaga maarmi karno adeegyada dibadda inooga imanaya. iminka xaadirkan dalka Soomaaliya waxaa lagu keenaa wax allaale iyo waxa ay isticmaalayaan ukuntii ama beedkii ayaa la keenaya, dibadda laga keenaya, malaygii ama kalluunkii ayaa bannaanka laga keenaya, hilibkii ayaa haray, dooradii ama digaaggii ayaa bannaanka laga keenaya. kaliya waxaa haray in hilib la soo waarido oo waddanka Soomaaliya la keeno. tanina waa dhibaatooyinka haysata dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ay ganacsatada Soomaaliyeed aysan aamineen in qudaarta bannaanka laga keeno ay faa'iido leedahay.
laakiin waxaa ka sii wanaagsan in dalkeenna aynu beeranno oo aynu dakhligeenna la soo baxno si aynu uga maaranno cid in aynu barino tanina waa natiijada guusheenna ummadda Soomaaliyeed waan rajaynayaa in Soomaalidu ay ku baraarugi doonaan khayraadka aynu haysanno oo ay ku fikirayaan waxyaabaha ka dhacaya caalamka saameyn inay ku yeelan karaan mahadsanidin